بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله توفيق الله أنا وفجئه. waxaan ku jiraa darsigeena afraad ee sariirta iyo maxaan ku leedaa aan reerkaaga iyo sariirta fariidaha tawfiiqda Allah ana wafajo aniga soo qaadanay muhiimadu waxa weeye saddex baan nidhi ayaa maxaan ku leedaa dareen ku kaca kadibna saddexdii waxaan li waa indhaha waa dhagaha waa taabashada kadibna waxaan soo maray qaabka uu u dhacay actionka ficilkaasi siduu soo galayo waxaan soo qaadanay afar inay tahay maxaan ku leedahay aragtida ama maqalka ama taabashada koow talabaad waxaan nidhi caqligu tagaya madaxa caqliga markuu tagay kadibna qalbigu aadaya qalbiguna waa meeshii dareenka dhan uu kasoo maxaan ku leedahay kasoo baxay ta saddexaadna waxaan nidhi allahumma salli ala Muhammad waxaan ficilka ayaa soo maray marka ficilku imisuu qaadanaya way hadalku ficilkaasa imisuu qaadanaya way maadaama ficilkaas uu qaadanayo maxaan ku leedahay waqti qaadanaya waxa la sheegaa inuu ficilkaasi qaato min 3 ilbiriqsi ilaa iyo 7 ilbiriqsi gudahooda ayuu qofka bani aadanka isbedelkaas ugu dhacaya qofka bani aadanka waxa weeye intaas in laag 3 daqiiqo waxa waa 3 second to 7 second ayaa qofka bani aadanka isbedelkaas ku dhacaya markii uu 4 marxaladood soo maro waxaan leeyahay waa aragtida ama maqalka waxa laga yaabaa in la maqlay على سبيل المثال أنا أقول نيجي لمبا درينكي ساسبا سيدي سبب بني آدم كم حق هذا مثلا على سبيل المثال وحلاقي يابا إن أكسيدنت ولا حاجة وحلاقي يابا إن لو وصل شيء لب سوق قاعد لب تاسي وحوي تضبط البرقسي أما صدق البرقسي لحد هذا أي قفك بني آدم كوحوي فعل كي وكو قاضنا يا فعل كصوب حياة ما حد عليه وحلاقي يابا على سبيل المثال إلى هاي ما قدري وحلاقي يابا إن يرادو أن أبا أم هو يرد بسوق قاعد dhag isla markiiba dhigtiba maqashay aqligi wuxuu kala saarayaa ama aabba mise waa hooye qoftan la ii sheegay isla markii wuxuu u gudbinayaa waa wadnaha markuu u gudbiyo kadib qalbiga markuu u gudbiyo qalbigiiba isla markiiba waxa soo baxaysa ficil ah naxdintii la naxay naxdintii wajigeeda ama wajigaaga ayay ka soo baxaysa falidalik afarta marxaladood soo qaadanay marka waxaan dareenku sidiisa intaas ayuu soo qaadanay laakiin dareenka imisuu waqti intee in leeg ayuu soo qaadan karaa waxaa la leeyahay culimada waxaan ku leedahay nafsiga ay leeyihiin dareenka waxba sidiisa qofka bani aadamka wuxuu go'aan qaadan karaa isla go'aanka waa within 3 second to 7 second 3 ilbiriqsi ilaa 7 ilbiriqsi dhexdooda waxa weeye qofka bani aadamka go'aan uu qaadanaya walaal tawfiiqda Allahna waafajiye ayaa la rabaa in aad ogaatid haddaad reerkaaga rabtid inaan maxaan ku leedahay wanaajisid haddii odaygaaga rabtid inaad wanaajisid la soco haddaa intaas in leeg buu qaadanaya laakiin waxaa ka fiican in intaasoo keliya toona ku eegin waxaa ka fiican haddii reerku ay rabaan in ay aada iyo aada uga faa'iidaystaan waxay kuga faa'iidaysan karaan inay waqti isa siiyaan intaas laga yaaba cala sabiili almithaal laga yaaba ninkii isagoo meesha fadhiya inay qoftii soo xiratay dhar khatar ah dhar yaroo ka yaabiya odayga lasii hor socdo lasoo hor socdo la soco walaalay mar alla markii uu isha kugu dhufto waxa weeye isla markii 3 ilbiriqsi gudahooda ilaa ay 7 ilbiriqsi gudahooda ninkii isla markii uu tago 4 marxaladood soo qaato ishii qabatay maskaxdii bay tagtay maskaxda wuxuu ku kala saarayaa waliba waxa ka fiican ba sideeda qofta dumarka way yaqaanaan meesheeda ugu qurux badan weligeed waxaan arki jiray berigii aan yaraan waxaan maqli jiray qofta dumarka mar walba waxay muujisaa meeshay ugu qurux badan in walba maanta haday waqtigan zamankan joogno wixii fool xumaa iyo wixii qurux badnaa banaanka loo malaynayaa in dadku ay ka heli doonaan ama raggu ay ka heli doonaan ama ragguna ay dumarka tusayaan oo ay ka heli doonaan falidaalika tawfiiqda Allah na wafad qof walba ilaahay jalla wa ala meel gaar ah ama kor ama hoos ama dhinaca rabta ha noqotee wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala meel uu ka qurxiyaa jira falidaalika tawfiiqda Allah na waafajiyo walaashay walaalkay Allah ku waafajiyo gabadhaad aad ogtahay ba meel aad ka qurux badan tahay walaalow dharkii aad u soo xulinaysay meeshii yareed dhinacii aad ogeyd ha ka muuqato si aad ay soo jiidato qalbigiisu soo jiito mar hadduu qalbigiisu soo jiito isbedelkii aan nii sheegayay ayaa ku dhacaya walaalow adiguna saas leeg waxna fiican sideedaba marba haddii aad reerkii aad joogtaan ama guriga aad joogtaan
in labada qof ay isku baahan ee ilaahay jalla wacala isku abuuray in ay isku diyaariyaan waxyaaladii kii kala soo jiidan lahaa. kelmadda romantic waad maqashaan umalayn aad baad u maqashaan, laakiin weli qaar badan oon dictionaryga ka fiirin baa jira. romantic kelmadda la yidhaahdo waxa weeye waa kelmad soo jiidasho. ani tarjimo waxa weeye waxaad samaynaysaa camal ama ficil baad samaynaysaa ood ku soo jiidanaysid qofkaad rabtid inuu ku jeclaado. kelmadda romantic waxaa lala yaabaa qaar romantic bariiska u maray, qaar u maraya maxkan. romantic waxa weeye adiga oo u soo xidhay dhar wanaagsan oo aad og tahay in aad ku soo jiidan kartid odaygaaga. adigana waxaa laga yaabaa inay laabta qaybta yara sare ay xaaskaagu ay ka hesho. maxaa markaasi aad adiga kugu habboon inaad laabta yara inta sare aad usoo qaawisid, dhar fiican aad xidhid, maadaama aad gurigii ku jirtid. waa reerkaagii weeye, waad ku soo jiidan kartaa sidii aad og tahay. waa intaas saddexdaasi ilbiriqsi gudahooda ayaad ku gaari kartaa. laakiin saddexdaa ilbiriqsiyaa nii sheega waa intii uu ku dhici lahaa, intii maxaanku dhahday arrintu ay ku maxaanku dhahday isbeddelku ku dhici lahaa. laakiin waxaa ka dambeeya isbeddelka haddii la rabo in laga faa'iidaysto, waxaa la rabaa in laisku soo dhawaado. isbeddelkaa waa dhacay, gabadhii qoftii waa kacday, dhar yaabilay ku soo xidhatay, way ku soo garamartay, dhinaca jikada u beedhay. maxaa markaa la rabaa adigii? waxaa waajibkaaga adig isbeddelkii waa kugu dhacay. adigoo isbeddelkii kugu dhacay ha degdegin, laanna nabigeena suuban salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ha degdegina sidii xayawaankii. maxaa lagaa rabaa markaas? talabadii inaad ka daba qaadid, jikadii baa kaaga horeysaa, jikadii inaad kaga daba tegtid. hadday wax qaadaan biyo cabayso, gadaasheeda istaag, dhaxda qabo, ku dheg, ama weliba marka qaarkood la yaraa dhoodhoojiyo ayaa dumarku ay sii kululaadaan. ilahay tawfiiq alla noo faji. dhoodhoojiska iyo maxaan ku idhahdaa arrimahaas ay ninka ragga walaashay allah ku barakeeyay. adiguna sidiisa waxa aad kusii kicin kartaa oo sii socon kartaa. waa waxbaan ka arkay marka qaarkood. ilahay tawfiiq alla noo faji. xataa qayba xayawaanka orgeyga waxaa la sheegaa orgeyga waa xayawaanada ugu maxaan ku idhahday ugu maxaan ku idhahda dareen ama ugu shahwad xagga dhayn. waa intaasu daba cararaya in walba isagu xadka dhaafay. marka qaarkood xataa iyadoo kaajeeso kaadida cabay intaas ma calaa kulli xaal ma socda. astaqfirullah alcadiim. anyway, maxaa laga rabaa walaalow? markii ay dhinaca u kacdo, meeshii ay dhinaca u kacdo, ka daba teg, gacmaha ka ciyaar, barafarayn iyo maxaa ku dhaha socod. adiguna walaasha ilaahay khayra ku siiye waxaa ku dadaashaa bal inaad kasiyara kacisidba kusii kulaadaba hore usii socotid. dhinacan hadduu kugu yimaado dhinaca kalea loo baydhaa. haddii lacag ilaa aada isla aadaan meeshii aad ugu muhiimsanayd ee ahayd sariirta. tawfiiqda allahna waafajiyo. marka waa intaas ayaan waxaan ku nidhi duruustiaan soo qaadanay. waxaa ka mid ah saddexdii indhahaagii, dhagahaagina markaa maxaad saddexdii xataa waa isticmaali kartaa. maxaa meesha ku jirta? waxaad isticmaashay ishii waa raacday. ishii markii ay raacday kadib maxaad bilaabaysaa? marka had jikada geshid waxaad bilaabaysaa hadda sheekadii macaanayd ee iyadana dareenkeeda kicin lahayd, adigana dareenkeed. laanno dhegtii baa cadday. dhegtii markay cadday maskaxday aadaysaa, wuxuu ku hadlayo ayaa si fiican hubanaysaa. markii hubisa kadib qalbigu aadaya, qalbigiibaa ficilkiis ku bedelay. ficilkii markaa waxaa bilaabmaya in ficilkii haddana ay sii kululaato sheekadu. hadalkiiba sug. maxaa ku soo hadhay? waxaad isticmaali kartaana arrinkii saddexaad ee maxaan ku idhaha ahayd ani sheegay ahayd ishii, dhegihii iyo farihii. gacanti waxa weeye waa tawfiiqda allah noo faji. dhinaca loo badan yahay taa marka qaarkood fiqiga loo yimaado waxaa la yidhaha dhinacan maaha, dhinacan baa ugu sensitive ah. ila mar alla markii aad taabatid isla markiiba signalku bixinaya wuxuu aadaya maskaxda markuu aada kale signal kale bixinaya wuxuu aadaya qalbiga markuu aada kadibna isbedelkii aan nii sheegayay ayaa anteenada oo u kacay ninka ragga, qofta dumarka oo maxaan ku idhahday yar qoyday. allahna waafajiyo dhammaanteen ilaa darsigeenaan ka gaarayn. waa darsigii afraad wey. waa darsigii afraad walaalayaal. tawfiiqda allahna waafajiyo. intaa waxaan ugu talagalay waa labada qof ee isqaba, ninka iyo naagtan ugu talagalay inaad cilmiga aan nii sheegayo inaad ku isticmaashaan. xaaraan ilaahay jala wacala ma rabo. wabilaahi tawfiiq. ilaan kasoo gaaraya darsigeena shanaad insha allah. asalaamu calaykum waraxmat ullah.